waxaa maalintii labaad xidhan goobaha ganacsiga ee ku yaala magaalada Laascaanood boqolaalo qof oo ka ashtakoonaya lacaga been abuur oo la soo galiyay suuqyada magaalada ayaa isugu soo baxay sharciyada magaalada Laascaanood kuwaas oo sheegay inay u adkeysan waayeen ganacsato ay sheegeen inay lacaga been abuur soo galinayaan magaalada kuna urursanayaan lacagta dollarka maamulka heer gobol iyo heer degmo ayaa dadkii isugu soo baxay sharciyada magaalada kula hadlay goob fagaara waxayna dadkaasi sheegeen in ganacsatadaasi ay dhibaato ku hayaan dadka danyarta ah kuwaas oo ay sheegeen inay lacagihii ay haysteen wax ku gadan kari waayeen qaar kamid ah dadkaasi ayaa ka hadlay dareenkooda iyo dhibaatada ay la kulmeen muddadii ay suuqyadu xidhnaayeen sixir bararkuna ka jiray iyo lacagta la diidayo si qabow inaynu hawsha isaga afjarno waa sax lacagteennii hore aynu qaadan jirnay oo mandaqada laga qaadan jiro Soomaaliga shilinkii kunjin in la qaato waa sax lama diidi karo qofkii diidana waxaanu leenahay maamulku gacan adag waxa kaga qabtay waa qofkii lacagteennii hore diida kana tirsan muwaadiniinta reer Laascaanood waxaan u sheegayaa dadweynaha reer Laascaanood inay lacagtoodii hore qaataan lacagta dambe ee jeexan ee qashinka ah qiimaha galayna ay iska diidaan dalkooda iyo dadkoodana ay maartay wanaajiyaan dhibaatada waxa weydiinaya macnaheedu lacagta waxa lagu diidayo macnaheedu sababta keentay in lacagta jiraysa la diido lacagtaas waa in la qaataa macnaheedu dalka hadduu dadku nimcadu ka badato way tacuduuna matala ilaa tuxsuha nimcada la hadda tirsan ma soo koobi kartaan marka dalkii nimcadii ba ka badatay adeerow gacal lacagta naga qaato oo lacagta ogolaada lacagta la diiday waa lacagta laga keenayo gobolada dhexe oo ajilka ah oo la soo raray ee gobolada dhexe naga timi lacagtii hore inuu isticmaali jiray inta lacagtaas inoo iman oo isugu jirtay lacagta casaanka iyo cadaanka nooc walba isugu jirtay baynu isticmaalaynaa lacagtaas aynu qaadanaynaa wixii dhinaca kale maamulka heer degmo iyo heer gobol iyo ciidamada booliska ayaa ka qayb galay mudaharaad looga soo horjeedo lacagahan lacag faalsaasita oo gobolka ku kicinaya insha Allah talaabo sharci aanu ka qaadaynaa dadka keenana waan ognahay lacagta faarsada ee ka kaanaya Puntland iyo Federal iyo Cadaado sida ay sheegtay ganacsatada degmada Laascaanood iyo saraakiisha ciidanka gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayre Dirir ayaa dadkii halkaas isugu soo baxay la hadlay waxaana uu sheegay in ganacsato ay ka maamulahaan ka warqabaan inay wadaan dhibaatadan lacagtana soo galinayaan gudaha magaalada Laascaanood kana qaadi doonaan talaabo sharciga waafaqsan hal diiday waxa weeye lacagta faarsada ee ka timi gobolada dhexe ee koonfurta Soomaaliya ee fasahaada ku riday ganacsatadii ama dhaqaalihii gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascaanood waxaan leenahay kunkeennina aynu qaadano hore aynu isticmaali jirnay iyo lacagmoodid in laynagu dhacayo ama hantideena iyo maalkeena lagu dhacaya dadka keenaya oo aan hadda magacyadoodii gacanta ku hayno oo warqada ay noogu qoran yihiinna talaabaanu ka qaadanay ilaa hadda waxaanu haynaa 14 qof oo waxaan ka ganacsada oo dad reer Laascaanood oo la yaqaan oo ay ku jiraan dad gaadiid leeyahay oo ay ku jiraan dad baqaar haysta oo dambe ee faarsada warbalanku soo saamaha sidaas aynu bal idinku la shaqeeyo maamulka gobolka degmada iyo amniga soona sheega waxa ku aragtay wabillahi tawfiiq waxaan aragnaa su'aal khaldan waxay leeyihiin lacag baa la soo raray nimanka lacagta soo raray oo lacagta soo raray waajibkooda hala mariyo anagu ma hayno dollar iyo Somaliland tan ma waafaqaano sida runtii ma waafaqaano kowde waxa weeye lacagta la leeyahay la diido anagu Soomaaliga lacagta caadiga ahayd oo aan ku ganacsan jirnay wax laga gashan jiray way lacagta la diiday anagu lacag xun oo siyaad bare wataas la leeyahay la joogo maxamed siyaad bare taamiyaan iska joojinaa oo diidna Faarax Dubad goob joog Laascaanood